waa afmeer iyo gobolka bari jaamac aadan cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashay ururada argagixisada loo garan og yahay Kaarabuune waa horjoogaha shabakad madax jabiska iyo qaraxyada u qaabilsaneed argagixisada magaalada Boosaaso muddo dheer ayuu ku soo jiray kooxaha argagixisada 2006 ayuu ku biiray kooxdii ka dagaalami jirtay buuraha ee la oran jiray Xisbul Islaam Galgala ee uu madaxda u ahaa Atam dhowr sano ayuu ka tirsanaa kooxdaas 2009 ayaa loo soo bedelay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso halkaas uu ka bilaabay dilalka iyo madax jabinta haldoorka reer Puntland gaar ahaan kuwada gobolka bari ilaa waqtigaas waxa uu ahaa horjoogaha shabakad madax jabinta iyo qaraxyada u qaabilsaneed argagixisada Al-Shabaab waxaana uu ku dhameeyay howlgalladiisa inta uu ku guda jiray indhihii bulshada ilaa iyo dhowr shabakadood ayaa la soo shaqeeyay isaga uu horjoogana u noqday ururada argagixisada Shabaab iyo Daacish ayuu marba mid u degaragon jiray shabakadahan argagixisada iyo fashilintooda waxa si wada jira uga qayb qaatay taliska ciidamada bilayska gobolka bari taliska ciidamada daraawiishta gobolka bari ciidamada sida gaarka u tababaran la yiraahdo BISF iyo ciidamada badda Puntland ee BMBF ayaa gacanta ku soo dhigay isaga iyo kooxdiisa waxa uu si dhiiranaan ah u qiranaya dhammaan dilalkii madax jabinta ahaa iyo qaraxyadii uu ku laayay haldoorka gobolka bari horjooge jaamac aadan cabdiraxmaan waxa uu ahaa ninkii xiray remote-kana u taabtay qaraxii X-Control ee magaalada Boosaaso loogula egtay kolonyadii gaadiidka ahayd ee wafdiga madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xilli uu galayay magaalada Boosaaso magacaygu waxa weeye waa jaamac aadan cabdiraxmaan Kaarabuune lagu naanaysaa waxa ku dhashay magaalada Qandala hooyaday waa Faaduma Faarax waxaan deganahay waxa weeye Qandala soona Qandala intaas waxa weeye hooyada iyo reerkeeda ku nool yihiin wax barashana waxa weeye anu ma aan gelin abay anigu yarbu waxa weeye dhintay wax barasho igeeyana ma ay jirin waxa weeye xagga diinta waxaan gaaray quraanka afarjis iskool ma aan gelin balwad waa leeyahay sagaar iyo qaad wax kale oo aan leeyahay ma jiro intaas wax ka ma jiraan ninka la yiraahdo Lahore waa waxa weeye wuxuu yiri jaamacu shaqo ma rabtaa adoo shaqada maxay tahay waan wuxuu arma guri laga dhisayay ma shaqaysanaysa ehelna waan aabahana waxa weeye waa isku fiicnayn waxaan adoo hadii shaqada waxa weeye helaysid waa shaqaysanaya waxa weeye caruurtayda waxa weeye biil u raadsanaya wuxuu sameeyay wuxuu yiri soo diyaar garow subax adigu waxa weeye maalmaha kamid ah wuxuu nasaaray gaari wuxuu yahay market subaxnimo boos ka baxnay nimankan sahaadooda waa sitaaneen anigana lillahi daacad waxay iga tahay nimankaas way sidoo sheegay inay wax walillahi daacad ka tahay runtii oo labaan abtiyaal u yahay midna uu dhalay adigu goortaan karin dhaafnay ayaa gaariga la istaajiyay hadii la istaajiyo waxa weeye waa ka soo degeen alaabtooda kala soo degeen waxa la jaamacu soo deg waana gaariga maxaa inuu ka reebteen gaarigana waa dhaqaaqay waxa la yiri waxaanu nahay waxa weeye anagu xukuumadda islaamka oo waxa weeye buurta joogta waxa magacooda xisbi islaam baa loo leeyahay waxa weeye hadii aan gaari ka dignay waxa la yiri waxaan rabnaa inaa waxa weeye wixii aakhira ugu shaqaysan lahayd lagu baro oo sida u tukan lahayd waxa weeye diinta wax laga soo baro koorta Atam baa madax u ah taariikhdu waxay 2006 hadii sidii ahayd adigu nimankii waxa weeye waxaan buuray jafnaba habeenkii jidkan sii joognay waxa gaari awalna laga soo rogay waxa weeye 22 loo biyo ah iyo boorso sahaydi ku jidho baasto kalluun ilaa wixii adigu iidaanka ahaa adigu habeenkii jidkan sii joognay habeenkii labaad baa waxa weeye waqti gaaban tagnay adigu maalinimo ah haddaan tagnay anigu waxa la geeyay meel waxay tahay cuntada lagu kariyo kooga xirada weyn la ima geyn xiradii weyn hadaan la geyn meesha wax ka shaqeynaya dabka shiday cuntada karinaya nin jileecayo nin tim adag kii timaad jilecsana oo tim jilcaaba meeshii laga saaray aniga la igu bedelay aniga hadii la igu bedelay adigu in sanad iyo wax ah baan ku ahaa meesha dabka shidaayay adigu waqtigii sanadkii labaad hadii uu dhashay waxa weeye oo adigu gabagabay yahay waxa la baray waxa weeye dabajeex sida loo rido iyo qoraga ah ka iyo baaskoolada tababar kale oo ay bareen ma u jiro waxyaalo waxa weeye xadiis oo aynkaasna waa ay bareen xadiisada waxaan ka hayaa ma jiraanin hadii ay sidahay quraan waxa weeye waxaan idhi laba jis baan gaari adigu waxa adigu ilaa jiska saddexaad waxoogaa la mariyay waxa weeye laga dhigaysan jiray awalna intaan maray awalna jiska afraad ma aan dhamayn adigu waxa weeye hadaan sidii u joogay 2009kii
dhaladkiisii baa aniga waxa weeye weel igu daray waxa la yiri jaamacadu magaaladii baa aadaysa awalna laga soo kaxay Boosaaso nin baa la igu daray wuxuu igeeyay toolal waxa la yiri waxa la dhahaa xid gaari uu iga soo saaray gaarigii waxa weeye adigu buurahaas nagala soo degay xeebtu waxa weeye nagula soo degay xeebtaas igala soo laabtay Boosaasan si ku soo galayaan Boosaadan ku soo galay ninkii la oran jiray Lahore baa cidi ugu horeeyay oo aan magaalada ku kulan oo aniga waxa weeye awalna magaalada waxa weeye aniga iga taqadimiyo oo waxa weeye beenta iyo lugooyadaas iga saaray magaalada haddii aan ku kulanay ninkii Lahore ah wuxuu siiyay 2000 haddii uu siiyay adigu waxaan sameeyay waxaan aaday magaalada Qandala oo reerkii iyo hooyadii kulli jiraan adigu haddaan muddo ku maqnaa waa aan soo laabtay haddaan soo laabtay magaalada waxa uu isaga lama waayo oo waqtigaas baawt ka raraa haddii wax weey aan waqti iska helay wuxuu yiri wuxuu ii keenay maalmaha kamid ninka la yiraahdo Abshir Tooshle iyo ninka la Muxsin la yiraahdo Sheekhala wuxuu yiri jaamacu waxa rabaa nimana kan inaan la shaqaysid oo wax kale lagu soo dirin inaan nimanka la hawlgashid oo adeer hawlgalku muxuu yahay hawlgalku waxa weey iyaga ku sheegay haddii sidii ahayd aniga waxa weey baaskoolad buu idhay dhaban casbi ahayd baaskoolad waxay iga bedeshay ninka la yiraahdo Abshir Tooshle wuxuu igu bedelay mid nooca afka dheer ah haddii ay sidii dhacday waxa weeye wuxuu wax sameynaysa anigu rag inaan sameeyo waa rabaa oo waxa weeye rag magaalada kala soo baxdo magaalada rabta la rabaa inaan shaqo ka bilowdo haddii wuxuu yiri magaalada inaan shaqo ka bilowdo yiri aniga dantii waxa weeye hawshii kale iyo barbi ugu keentay waxay ugu qabsatay niman dhalinyaro ah oo ka mid yahay Ayuub Cumar Shire inaan sidii ugu hanjabo oo ilo naf bay waday aniga horta sidii waxa weeye isay ku soo jiito sidii haddii waxa weeye raggii aan u soo jiito wuxuu yiri raggii waxa weeye haddii aan helay magaalada waxa weeye ka shaqgal ragga anigu waxa weeye waxaan idhi haddii waxa weeye arrinta eedinayeen rag baa isoo diray arrintaasna waa dadka ila laayo haddii sidii ahayd waxa weeye adigu sidii baan ku hawlo galay inta dhexdeeda waxa weeye horta wixii waa kala ilaa walaak dadka aan huleynay markii aan isdabitiro 60 waa gaaraan inta kadib intii 17 loo gaaro waan xusuusnahay 17kii waxaan ku wareegnay oo amar nagu siiyay Daacish hadduu amar nagu siiyay waxa dhacday wadankii wuxuu yiri iyaga qabsaday meeshana waxa weeye ninkii waxa weeye ood iyo abtiisiyana waxa weeye ood baa dhow amar waxa inuu siiyay nimankaas hawshooda inuu waxa weeye baa la soconaysa nimankaas ka mid yihiin amarka waxa uu siinaya Cabdiraxmaan Saciid Shirwac Lahore haddii sidaa waxa weeye wax Boosaaso jooga waxa weeye ayaama kadib baan waxa uu nagu nasaaray gaari sidii baan wax ku aanay baadi haddii aan tagnay waxa weeye amar wuxuu nagu siiyay aniga gabar baadiyuhu waa dhaadar waa wadankan degno gabadhu waa gabar waxa weeye waxa la yiraahdaa inay Muuse Cambe laakiin magaceeda hadda waa laqsanahay gabadhi waxa weeye nin askari ah qaba wuxuu yiri gabadhaas askari baa qaba jaajuus iyo hawl bay la imanaysaa gabadha waxa weeye waa ina amar waxaan ku siiyay ina waxa weeye amar ku bixiso disho gabadhi waxa weeye waxaan ku dilay waxa weeye xaafadeedii habeenimo waxaan amar ku siiyay ninka la yiraahdo Maxamed Abshir waxa gacantii iyo olyo gacantii hore waxa ahaa Maxamed Abshir oo gabadha dilay olyona wuxuu dilay wiilkii meesha lagu dilay waa Anjel meel la yiraahdo tuulo la yiraahdo wiilka sababta loo dilay yar dhigala uu ahaa hawayadiisa hadii waxa way xabadii ku dhacday boolikii wuxuu isku duubay baaskooladii karona waa qabaji oo wixii ninkan qoraga baaskooda ninkii ka qaadan in ku leeyay waa soo laabanay oo amar buu nagu igu siiyay inaan ragii soo celiyo Boosaasan ku soo laabanay Boosaadan ku soo laabanay waxa weeye waxa dilay ninkii la oran jiray amar nagu siiyay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Saciid Shirwac
uu amar igu siiyey laahoor ninka la yidhaahdo muuse xaaji faarax muuse waxaa nin nabadoona u ahaa sidiiba anna amar u bixiyey waxaa gacanta hore lahaa ninka la yidhaahdo ayuu cumar shire tan labaadna waxaa lahaa maxamed abshir maxamed iyadana ay ku qaateen laba boqol waxaa lagu dilay meesha la yidhaahdo xogato daacish baanu nahay dilkii labaad uu amarka igu siiyo oo anna amarka aan ku bixiyo wuxuu ahaa siciid maxamed awaare nabadoonkii isagana amar baan sidii ugu bixiyey waxaa dilay ninka la yidhaahdo maxamed abshir waxaana la socday ninka la yidhaahdo olyo dilkaasna waxaa lagu geystay aagga roodub salaad mar uu ka soo baxay magaalada boosaaso lacag waxa ay ku qaateen ninka waxa weeye gacanta lahaa oo dilka geystana wuxuu qaatay 200 oo maxamed abshir buu ahaa yarkii la socday oo maxamuud abshir muusena waxa siiyay 100 dilkii ku xigay wuxuu ahaa ninkii la oran jiray waxa weeye marayhi golis isagana amar waxaan ku siiyay sidoo amarka ay siiyay anna amar waxaan ku siiyay ninka la yiraahdo ayuu cumar shire ninka la yiraahdo waxa la socday maxamed abshir maxamed ciise iyo ninka la yiraahdo olyo gacantii waxa geystay ninka la yiraahdo ayuu waxay ku qaateen aan ku bixiyay isaga oo 200 ah iyo ninka la yiraahdo maxamed abshir oo 100 waxa lagu dilay aaga golis sababta lagu dilayo nooma u sheegin laakiin kulli waxa weey wax walba sabab u yeelayeen iyaga sababta u yeelayeen waxa uu karo amar igu siiyay nin la oran jiray Firin Maxamed Yuusuf oo gudoomiyihii hore oo qandara ahaa oo anna aan sidii amar ugu bixiyay ninkaas amar waxaan ku siiyay nin la yiraahdo olyo iyo nin la yiraahdo olyo oo magaciisu yahay maxamuud abshir muuse iyo nin kale la yiraahdo jiir oo inaayis la yiraahdo ini Ismaaciil Axmed jiir Ismaaciil Axmed dilkaas waxa gacanta geystay ninka la yiraahdo maxamuud abshir muuse olyo ninka la yiraahdo jiirna waa la socday weedu ah dilkaas wuxuu ka dhacay aaga waxa weeye toox ama la oran karo aaga waxa weeye dollarka ninka waxa weeye waxaan ku siiyay uu igu soo dhiibay ninka la yiraahdo olyo 200 waa ninka gacanta geystay waa maxamuud abshir muuse jiirna 100 baan siiyay anuu 300 buu isiin jiray amar wuxuu igu siiyay wuxuu ahaa ninkii la oran jiray gudoodani oo amar igu siiyay ana amar ku siiyay ninka ana amar ku siiyay waxa ayuu cumar shire gacanta geystay ninka la socdana wuxuu ahaa olyo ninka la yiraahdo hadda muhonge oo ku magaciisu yahay Cabdullaahi Salaad Boos ninka dilayna oo gacanta lahaa baaskood ku haystana waa ayuu cumar shire ninkaas lacag waxaan ku igu soo dhiibay 200 gabanka Cabdullaahi Salaad Boos 100 baan siiyay dilkii kaleeto wuxuu ahaa dilkaas wuxuu ka dhacay aaga waxa weeye waa la ii sheegay laakiin ma hayo laakiin amar baan ku waa boosaas isagu ahaa taliyihii kantaroolka dilkii kaleeto wuxuu ahaa nin la oran jiray doolale dilkaas amar buu nagu siiyay wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo aaga himilo amar waxaan ku siiyay ninka la yiraahdo ayuu cumar shire iyo maxamed abshir gacanta hore waxa lahaa ninka la yiraahdo ayuu cumar shire ninka la yiraahdo ka kaleeto oo isna baaskood sitay oo waxa weeye isna dilka la geystay waa maxamed abshir maxamed ciise lacagtii uu igu soo dhibana waxay ahayd 200 ninkaasuna askari uu ahaa askari ahaan baan loo dilay dilkii kaleeto wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo xalwa Kismaayo nin askari uu ahaa askarinimana waxa weeye uu amarka igu siiyay ninka waxa weeye ana amarka ku siiyay wuxuu ahaa maxamed abshir maxamed ciise oo gacanta dilka lahaa waxa la socday ninka la yiraahdo maxamuud abshir muuse oo olyo ah weedadana waxa lahaa Cabdullaahi Salaad Boos oo muhonga ku magacaynaanaystiisu tahay nimanka lacagtii waxay ku qaateen waan ku siiyay ninka la yiraahdo maxamed abshir 200 ninka la yiraahdo olyona waxa siiyay 100
ninka la yiraahdo mahongona boqolaansi anigu 300 baan lahaa dilkii kaleeto wuxuu ahaa meesha la yiraahdo Himilo askari buu ahaa waqaylaya suuliyada meesha leedahay suuliyada u kacay suuliyada markuu ka soo socdo ayuub iyo ninka la yiraahdo amar buuna u siiyay ayuub baan amar ku siiyay ninkaasna ayuub baa waxa weeye dilkiisa lahaa oo gacanta geystay ninka la socdana wuxuu ahaa maxamed abshir iyo ninka la yiraahdo olyo oo abshir baa maxamuud abshir muuse ninkaasna ayuu wuxuu qaatay 200 gabanadana 100 baan siiyay ugu soo dhiibay dilkaas wuxuu ka dhacay bushashka meelahooda ninkaas askari u ahaa wax anagu loogu xulanayo waxba kama sheegi karo aniga amar qalan wax weeyaan lahayn ka soo noqod baligu siinay markii halkaas dilkaas aanu geysanay buu amar isna wuxuu igu siiyay intuu wax weeyay yimi wuxuu yiri arintii waa laga wareegayaa wadankii waa isbedelay al-shabaabkii in la shaqeyn jiray balagu noqonaya anu amarka waa waxa weey hadal kuma soo celin karo kitaab way marina waxa weey hadii aan hadal ku soo celiyo ana waxa weey dibdameed waxa weey aan soo arkay arinta ka wareegna waa awal al-shabaab baan ahayn daacish baan ku wareegay daacish tii baan ku wareegna al-shabaab buu ku wareegayna oo ku noqonayna amarka markasta isaga siinayaan al-shabaab hadii aan ku wareegnay dilkii waxa weey baan meeshii ka bilowna akalo amar igu siiyay ana amar ku bixiyay nabadoon Ismaan Axmed Askar oo masaajidka waxa weeye New Boosaaso oo kula tukaday weeda ahaa ninka la yiraahdo Jiir Ismaaciil Axmed oo aniga ninka la yiraahdo Ayuub gaari aan waxa weeye soo raacnay oo goortan ku soo dhaweyn ninka la yiraahdo Ayuub weega digay oo Ayuub isagu u hagaayay mar uu masaajidka soo baxay salaadii cisha ahayd hadii uu ka soo baxay waxa weeye isla markii waxa weeye yarkii waa soo gaaray dilkii anigu gaarigii taxiga aan wadanay oo aan saarahay oo waxa weeye meeshii oo tagaysa uu tilmaamayo baa waxa weeye dilkii dhacay gaarigii baa ila cararaba aniga isma aan arag dilkaasna waxa geystay ninka la yiraahdo ayuu Umar Shire dilkaas lacag wuxuu lagu siiyay ninka la yiraahdo ayuu waxa siiyay 200 ninka la yiraahdo Jiirna waxa siiyay 100 dilkii kaleeto uu amarka lagu siiyay wuxuu ahaa Suldaan Bashiir Muuse Koonti anna sidii amar ku bixiyay dilkaas wuxuu ka dhacay Masjidul Mubaarak oo waxa weeye wuxuu ku dhow yahay meesha la yiraahdo dhinaca laanta wada dilka waxa weeye wax ahayd maalin jimcaha hadii ahayd waxa weeye masaajidka gudihiisa waxa uu galay ninka la yiraahdo Ayuub Umar Shire ninka la yiraahdo Maxamed Abshir iyo aniga iyo Ayuub baan ahayn Maxamed Abshirna gees kale tuu taagna aniguna Ayuub meeshii uu ka galay baan gadaal u haray Ayuub guduhu u galay dilkiina isaga geystay meesha waxa weeye ciidan baa ku hareeraysan annaga waxa weeye si naloo arki waayay anu ma lahayn maalinta ninka soo baxsanaya laakiin arki la'aantii nala arki waayay waxaan ma waxba la saaray aniga baa fajaco yaaba ilaahay ay keen anagu waxa weeye inaan binaan la arkayo hayn iyo nala arkayn ala kulli hal sidii baan ku tagay ninka la yiraahdo maxaa abshirna bambo tuuray bambada ilaahay inaan wax ka yeelin baan u maleynaya sidii baan waxa weeye ku soconay waxa uu lacag igu diibay ninka la yiraahdo Ayuub waxa siiyay 200 ninka la yiraahdo Maxamed Abshirna waxa siiyay 200 aniguna waxa weeye 300 markasta ay goonay ya lacagtani waxay sheegayso waxay diibay ninka la yiraahdo Lahore ninka aniga amarka isiinayay dilkii kaleeto oo waxa weeye uu amarka igu siiyay inaan waxa weeye amar ku bixiyo waxay ahayd gabar waxa la oran jiray Caasha Maxamed Caynab gabar ganacsataa bay ahayd gabadha suuqaas mas'uul darale ku dhow bay wax ku lahayd bakhaar gabadhii anigana sidii amar ku bixiyay gacanta wax weeye waxa dilka geysay ninka la yiraahdo Ayuub Umar Shire Maxamed Abshirna waa la socday wuxuu ahaa isagu ilaalinayay taasna waxa weeye waxa uu igu dhiibay ninka la yiraahdo Ayuub 200 baan siiyay
maxamed abshir boqol baan siiyey gabadha waxa waqti la dilayaa waa subaxnimo adigu ma 3 saac bay waqti caynkaas sababta loo dilay wax sabab loo dilayo wax uu noo faahfaahiyay male annaguna waxa weeye sidii xoolay baan isaga soconaayo wax isqabanayba ma aanu leeyin mid xataa ra'yi keenayo leeyahay maxay xay ku soconaa laguma arko waxa uu kalo amar ugu siiyay ninka la yiraahdo Lahor laba askari oo booliska waxay joogaan meesha la yiraahdo golis horteeda baa waxa weeye waxa soo raacay gaari waxa weeye dhikila ah dhikiladii baandabada soo qabsaday labada askari meesha midna banaanku joogay islaam buu la fadhiyay midna gaari waxa weeye madax kula jiray haddii aan dhikiladabada haystay labadii askari anigu qoriyama sheeko laakiin baaskoro inay u qarsoon yihiin ilaahum bagaranay labadii askari waxa weeye mid walba xabad baan ka gaarsiiyay haddii aan ka gaarsiiyay gaariga waa ka booday wal mid kale tan dabada sii qabsadeen sidii baan waxa weeye ku baxsaday waxa amarka igu siiyeen wuxuu ahaa Lahor waxaan igu siiyay lacag 600 midkii 300 buu igu siiyay keligay baan ahaa qaraxii aan dhugno qaraxii ugu horeeyay aniga waxa weeye teamkayga oo amar igu siiyo wuxuu ahaa qaraxii doorashadii Cabdullaahi Siciidin madaxweynaheena maalintii markii la dooranayay oo aan gelinay suuqa caanaha sandaqad dhinaceed meeshaas oo walaalkeedii hore laga dhigi jiray jigmeyntii habeenkii qaraxa habeenkii waxa geliyay aniga iyo ninka la yiraahdo Maxamed Abshir subaxdiina markii aan soo laaftay adigu saacad 4 saac ilaa 5 saac inta ka dhaxaysay bay ahayd ramuudkaasna aniga taaftay waxa ka dhacana hadii waxa weeye ilaahay waxa weeye dib kuma yeelin qaraxii labaad wuxuu ahaa kii magaalada ka amar baan ku bixiyay amarkaan ku siiyayna wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Ayuub Umar Shire qaraxaas wax meesha soo galiyay ninka la yiraahdo Jiir iyo ninka la yiraahdo Olyo waa ninka la yiraahdo Jiir Ismaaciil Axmed iyo Maxamuud Abshir Muuse gacantana waxa la haramoodka taawashadiisa ninka la yiraahdo Ayuub wax la baltimaansanay adigu in ahayd meel qayilaadeed oo la yiri waxa weeye wixii waqti luuska dhulka ah si waxa weeye umada looga waaliyo kii waxa weeye labaad wuxuu ahaa kii ergada meesha la yiraahdo Tuulaniiko qayb odayaashii waxa weeye ergada ahaa waxa geliyay ninka la yiraahdo amarna waxa igu siiyay ninka la yiraahdo Lahor anna amar baan waxaan ku siiyay Ayuub iyo ninka la yiraahdo Maxamed Abshir iyo waxa weeye Olyo raggaas waxa weeye meesha tagay oo geliyay maalintii ramoodka la taabanayeen ninka taabtay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Ayuub ujeedka waxa weeye meeshaas warqad baa jiday qoran warqadaas waxa weeye tilmaamaysay in ay waxa weeye ujeedada markii ma aan fahamsan laakiin markii dambe waxaan ka helay meesha in odayaal iyo wax dad erga ah oo wax garad imanayaan kaana lacag waxaan ku qaadanay waxay lacagtu ahayd 300 baan mid kii kaleeto oo saddexaad afraad wuxuu ahaa kii meesha la yiraahdo Himilo kaas waa u dhameyn nin baa naga maqnaa la yiraahdo Jiir Ismaaciil Axmed aniga oo jaamacadana ninka la yiraahdo Maxamed Abshir Maxamed Ciise ninka la yiraahdo Ayuub Umar Shire ninka la yiraahdo Maxamed Abshir Muuse oo Olyo ah ninka la yiraahdo Cabdullaahi Salaad Boos ninka la yiraahdo adigu lixdayaas u dhameyn maalintii hore tobaan meesha ku qaylay habeenkii aan dhigayno hadaan meesha ku qaylay meesha wana ku rafacay 4 saac baarey ahayd oo meesha lagu kala tagay baan wax way meesha galnay laba qaybood bay ahaayeen kala yaa Maxamed Abshir mid ka dal galiyay waxa galiyay aniga iyo ninka la yiraahdo Olyo habeenkii waxa way sidii baanu kaga tagnay subaxdii adigu goor ay tahay adigu ma 8 saac bay adigu meelahaas adigu casarna aan la gaarin duhur laga soo tagay baan meel umugada meherada soo istaagnay aniga iyo ninka la yiraahdo Ayuub Umar Shire ninka la yiraahdo Cabdullaahi Salaad Boos iyo Maxamed Abshir Maxamed Ciise gacantii horeeto waxa lahaa ninka la yiraahdo Cabdullaahi Salaad Boos
tii labaadna waxaa lahaa ninka la yiraahdo ayuu cumar shire lacagtaas iyana wax ahayd lacagta qarxu wax isku mid ah bay ahayd himilo waa magaca waa iska baxay meesha waa buushash laakiin himilo meesha la yiraahdo waa meherad ka soo horjeeda tii madaxweynaheena loo dhigay oo anagu waxa weeye aan sababta lahayn aan dhignay waxay ahayd tii ex control taas waxa weeye waxaan haynay adigu 4 biri ninka la yiraahdo ayuu cumar shire waana la ka xiray amarna waxaan ugu siiyay ninka la yiraahdo Lahore haddii waxa weeye ninka ayuu waana la ka xiray anigii waxaan amar ku siiyay ninka la yiraahdo maxamed abshi maxaa ciise inuu waxa weeye ramuud ka taabto markii aan soo gelino rabbaha halka la yiraahdo qaraxaas haddii aan 4 biri haynay waa qaadnay anigii ninka la yiraahdo maalin waxa tagay aniga maxamed abshi maxaa ciise sahan baan tagnay meeshaan tagnay gaar maxamed abshi leeyahan wadanay waxaan soo eegnay gaariga meesha olyo ka soo bedeshay hadduu olyo ka soo bedeshay maalintii iska soo laabanay meesha control kisbar oo laanjid birtu baan cabaar joognay waa kan magaalada soo galay meesha la gelinayo baan levelkaas dameeto xogaa gadaal si sariirta dameeto u qariso waxa way ugu aadini gaarigana waa naga fogay xogaa nooma dhawaa isbees baawurtu ma dhaw waxa way dhexdaana waa banayn ilo sees banaan waxa way baawurtu u furan cidina fariisanayso baawur baa ka dulbooday baan warhaay ninka la yiraahdo ku dhamaatay suuyan dhamaatay gaariga waxa sameysay inadeer gaariga isdaaro bal naaftu qoay waa wuxuu buu istarana iska fiirnay iska jita waxa way jeegareynay gaarigan uu istaaray wuxuu yiri waa caadi sidii uu ku safray aduu maqrib gadaasheedii nagu noqotay anana si aan magaca ku soo galay habeenkaas iyo habeenka madaxweynuhu maalinteeda dama imanayo labada habeen ku jiri meesha qaraxaas ku jiri meesha waa ex control haddii sidii ahayd anigu maxamed abshir baan amar waxaan ku siiyay inuu isagu meesha aado oo ramuudka u taabto ninka la yiraahdo Lahore anigu amar wuxuu siiyay cid kale oo ramuudka taaban ka dhama jiddo adigaan amar ku siiyay cid kale oo amar lagu siinay ma jiddo aniga waxa weeye ninka la yiraahdo maxamed abshir gaariga ugu qaaday gaariga hadduu ugu qaaday waxa weeye meesha horteed meel ah baan ka digay waxaan sokeeto ciidamo iyo waxba iska jooga haddii aan meesha kaga digay anigu waxa weeye meel shu xilada meel biyusi oo xogaa dig ah digti ma raacay maxaa ninka la abshir waa soo laabtay buurtaas baan ka baxay wixii saaran tahay dhinaca eelboorka wax aan ku soconayo iyo wax ay wata iyo dan aan leeyahay iyo wax iga soo baxaya midna toona ma jiro waxa ay nin iska jahwareersan aduu arinta hadii ay sidii ahayd waxa dhacday adigu tan igu daray waxay ahayd telefoonkii aan watay gaarigan cabaar dabka kugu sii jiro gaarigan ku ilaawo waa ka tagay telefoon la'aanta meesha magaaladana waxaan ka qaatay waxay ahayd laba xabo kalluuna iyo afar waxa weeye xabo oo jiim ah oo biya iyo saddex xabo roodhi oo qalan subaxnimada meesha magaalada goobta ka tagayo adigu hadii waxa weeye sidaan sida ugu jeedi telefoon ma wato waa ila socodsiinay ma wato wax aan ku soconay ma garanayo adigu ala kulli xaal ilaahay wuxuu ku soo aadiyay madaxweynaheena iyo waftiga la socday waqti anigu hadii saacad aan garanay anigu wax weey jahwar qorraxna ma meesha id la harsado male oo jahwareersan aduu ramuudka anigu gariiraaye oo afshin igu jiddo hadii sideena isaga diriyay iska daantaansanba ramuudka taabto baabuurta waa ay kala sheegay markii hore wuxuu baabuurta waa laba gaari oo si kan dameeto anigu marka gaariba ma eeganayn waxaan qaraxaas amarkii adigu lagu siiyay ilo bela ka dameysay amarkii bixi sidii baan ramuudku taabtay hadii aan taabtay wax weeye oo qarax sidii ku dhacay adduunka wuxuu noqday naf iyo ciidan anigii waxa weeye dhulkiiba waa ila yaraaday adigu meesheedii baan ala kulli xaal waxaan hadii lagu joogsado lagu arag laakiin adigu hadhadhaag rag waxa weeye aniga meesha uma dhaweey laakiin kaabiga la soo gaaray meel waxa weeye dhagax aan la gaari karo wala iga soo dhawaad ala kulli xaal markii adigu saacada saaxiib ma 6 saac bi ahayd waxa kulli waqtiyaas ahayd
adigu calaa kulli xaal haddii ciidan meesha ka yimaadeen anigii daandaana waxaan u soo dhacay dhinaca kan lug baan magaalada ku soo galay waxaan u soo dhacay dhinaca kan waxa weeye u soo jeeda magaalada buurtii dhinacaas awal ka saaraa xagga kan waxa weeye badda u soo jeeda baan ka soo daadegay waa goortii waxa weeye dhulkii madoobaaday waxa weeye geedkii qofka aan kala garanayn gurgurad baa waxa buura dareen arki doontaan haddii ilaahay in gaarsiiyo aan ka soo degay adigu calaa kulli xaal anigu waxa weeye waxaan hayaan si aan hayaan aqoon banaabeennada magaalada ku soo gadaya arrintaas marka waxa weeye anaga wax lagu kalifay horta waa hanjabaad iyo waxa weeye arrintaas anaga aan sameeyna leeyahay balan ku sameynaya ilaahay nama sunsiin bal waxa leeyihiin dawladdiina waxa uu carar hal nin baan ahaa halkayga nin intaasoo nin intaan waxa weeye dib u geysanayo oo anigu waxa weeye sidii laygu hajabayay haddii waxa weeye kaliya markaan ahaan ciidanka u geli lahaa oo isagana waxa weeye ninkaan sheegi lahaa waxay ahayd darajo ilaahay ima sunsiin wax walbana haddii talo iyo kuma tiraado wax walbana qadar ilaahay weeye intaasaa qorayd haddeed marka waxa weeye qaraxaas lacagtiisii waxaan qaatay ma jiran waa laalantay oo waxa weeye ninkan ayuu waaxiraa adduunku waxa weeye jahwareer baa ka dhacay odagayna sidii haddaan magaaladaas oo kale hal mar baanu is aragnay odagay haddaan is aragnay waxa weeye wuxuu yidhi gacangooyo baa tahay hanjabaad buu igu daraba wuxuu ka wadaa haddii waxa weeye rag waxbuu ramuudka dee taabtaan geysan jiray adiga waxa weeye oo ahaa waxa weeye rag madaxdoodii ahaa baa maanta waxa weeye amar lagu siiyey inaa waxa weeye howlgal samayso howlgalkaaga waxaa kala soo bixi qaraxaas waxaa madaxweyne in waxa weeye meeshaas waxa weeye oo waxa weeye lagu dilo laakiin ilaahay ma qadarin halka baashan waxaan gelinay adigu goor ay tahay adigu maqrib meesh marka meel gabiya bay ahayd gabiga haddii waxa weeye xoogaa baan hoos ka soo qodnay hoos haddaan ka soo gudahan u soo gelinay bacdeen xoogaa ciidan ku kulmaan sidii waa ka tagtay waxay la soo maxaa ashir baashan bahal adigu waxay ahayd adigu bahal waxay tahay adigu 4 kiilo meelahaas oo waxa weeye baashida ku duuban gudahan ka firinaa leeydi sidii kiiskeed ugu jidaan meesha ku gelinaan ha meesh ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Lahor bay u tilmaamay awal baana waxa weeye ballantahay had meesha ay afta in laga soo qaado xagee bay ahayd meesha ka soo qaado afar dood kadib baashan laba habeen ku jiday maalintii madaxweynaha soo marayay baan waxa weeye subaxnimada hore gaari soo raacay waxaan ka dignay halka horeeto halka dhixda baan saa u tugay dhixda shaa dhinacaas ka soo wareegtay كدفتاس إن لقوا لا أركان كبقاي واحد سوي هل كقاع كركا سو قرمست هل كمود إن سوي داو وده حاجة كرسي تاكتي هل كان سوى حويتيان وحاجة ما شافوا شمرك وقركا إنه سوي كذا ودارت سوي واحد أدو قياس وحوي وهل كان يلا دارت يعني يحاول يسوي عبران وحيقول ده وحفر معين وحوي أفر ناس ها midabkiisu wuxuu ahaa cadaan ha kadib waxa dhacay qaraxi ciidanka ma dhaqaan dharkan siteen wuxuu ahaa dhar waxa weeye saxraawi wuxuu eegyahay waa midab lahayn ha meesha shafka dhulka kadib goorma ka tagtay meesha waxaan ka tagay adigu goortay ahayd 10 kadib ha yaa ku qaaday marka wax iqaada ma jiraan buurtan xagga uga dhacaya waa lugays ha حجابات كش واحد قال لي بوصاص مقالات ها أنا قالك قالت فرحة واحد قادم جرا واحد لاقى هاي حلقوا بلغنا مجري هذين كل السوق راعي حبسي قال شري أنا أمر وحنوسي إنك ليه الله ونوسي إن أنا هول الكاس كقيب قادنو هول الكاس قيبت أنا كقادني وحي أحيد ودقوينته iyo biyo inaan u qaadno aniga iyo ayuu cudashay aniga iyo ayuu subaxnimadii baan biyaha bilownay meesha la yiraahdo amar buu igu siiyay meesha la yiraahdo waan ka bilownay meesha la xaloo kismaayo biyihii hadday ka dhamaadeen oo aan biyo ka dhameynay tan shishe oo waxa weeye hubaal waa tagnay oo taana waxa weeye biyaha habeenkii maalintii dhan ma ka daabulay adigu gaarigaas aan ku daabuleynay maalin biyaha waa ka gadeeyay lacag buu noo dhiibay gaariga aanu maalinta wadano maalintaas u iibsi waa gaari barbokisa gaariga waxa weeye 12 maalin ma istaagnaan taangigana waxa weeye hadii shidaalku waxa weeye dhinmo
f baan ka dhigay balan taa nagu siiyo adigu biyihii aakhirkii u dambeeyay waxay nala gashay inaan dhinaca buuraha ka soo wareegno meesha aan geynayna waa baalada sare waxaan ka leexanaynaa haash soo garan meesha dhinaceeda wada ka leexato wuxuu u leexataa dhinaca bidixda ah oo rafka ah waxaan soconaynaa adigu xawaare wuxuu yahay adigu hal sac dhawaada halkaasaan biyaha geynaynay goortaa qaybtood baa joogta waa markii hawsha ay garaneen in waxa weeye wixii ay ku si amba bixi lahaayeen aakhirka u dambeeyay dhinacaasaan soo maray wadada qabuuraha soo garmaysid baan ka soo wareeganay waxaan ka soo galay dhinaca waxa weeye saddex dogo jidka soo doon ku soo dhacnay biyihii u dambeeyay waxaan ka qaadnay meesha la yiraahdo Naruuro waa geynay haddii aanu geynay haddaanu soo noqonay habeenkii waqti dambe nagu noqotay dagaalka bilowdo biyaha waxa loo geenayaa ciidanka al-shabaabka amarna waxa lagu siiyay anaga ninka la yiraahdo Lahor ba amar lagu siiyay habeenkii waqtigii dagaalkii baa wuxuu nagu qabtay anagu aan magaalada soo gelin habeenkii gidaar buush dhinaciisan gaariga dhiganay magaalada ma soo geli karo dhinacna ma jiro gaariga gudihiisa aan seexanay intaan meel iskaga baakinay oo waxa weeye magaalada waxa weeye buuraha horta kaasna qaybtaas ka qaadanay teeda kale wuxuu wax kale u jiro aan ka ilaawi caagad biyaha iyo dibijima caagada biyaha ah dawlad waa saaxiibkaaye ka bisibay may waxa weeye intaan u sheegin sidii haddaan idin walba arrintii waxa weeye nin diiday inta hadeer waxa weeye rag aan wada socono nin iga diiday ma u jiro adigu maalmaha kamida baan waxaan isku dayay inaan la hadlo la kulmo ninka la yiraahdo aniga amarka isiinay Lahor oo awalna aniga amarka ka qaadanay markii hore tana waxa weeye hawshaas lugta ay galiyo si siyaasada waxa weeye aan iska garan ay galiyo markii dambe afduub la igu galiyay baan waxaan war adeerow arrintan waxa weeye ma aha wax macquul ah waxayna ku socotaa jifida waxa weeye anigu aan ka soo jeedo macquul sawtahay iyo wixii wax garadka ahaa oo Puntland waxa weeye u talin lahaa ama amarkeeda haystay ama waxa weeye wax garadka ahaa hadii ahayd waxa weeye oday iyo hadii ahayd waxa weeye wax garad askariya intiina waxa weeye amar baa nagu siisay marka sidee waxa weeye arrintan marka xagee bay ka socotaa sidee baa maxaas ku soo kooskarey halka reer waxa weeye aan ka soo jeedo iyo wixii macquul oo waxa weeye reer kasta lahaayna soo baalraaca wuxuu igu yiri aniga amar baa la isiiyay amarka la isiiyana inaan waxa weeye qaato baa waxa weeye la igu dhaariyay adigana amarka aan ku siiyo inaan qaadato haddii aad qaadan weydo waxa weeye hadee waajibkeeda helaysaa adigu waxa samaysaa amarka aan ku siiyo qaado haddii aad qaadan weydo adiga waxa weeye kuwaas baa adigu booska imareen adigu aad marsiisay baa maraysaa waxaana la rabaa dadka in argagax iyo lagu rido sas iyo waxa weeye magaalada dadka sas laga rido waxaana ku sheegayaa jaamacu in waxa weeye ay rabaan qoladan waxa weeye aniga xakunta oo al-shabaab oo aan ka soo jeedo adigana waxa weeye la igu amray inaan waxa weeye kugu daro awalkii horeetana anigu kugu daray in waxa weeye magaalada sidii u qabsan lahayd argagaxeeda iyo hawsheeda laga shaqeeyo sida hadii uu yiri anigu waxa weeye waxaan ku hadlo waa garan waayay ilaahayna dameerkayga inuu isolonsiiyo wal waxa weeye wixii wax garada iyo wixii odayaal u sheeg ilaahay waxa uu taa ima solonsiyo taladana waxa weeye waa tan ilaahay baa qofka wax weeye solonsiyo ilaahayna ima uu solonsiyo